السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركلة السوداء وده أدي هذا ومهد سنتهين ما أنت واحد وكل يشان يلا باتنك muuqaal kan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago wasiirka amniga gudaha Christine Naom oo saaka laga wareystay mid ka mid ah barnaamijyada axad kasta ka baxa TV-ga NBC News ayaa wax laga weydiiyay hakadkii maamulka Trump joojintii uu joojiyay process garaynta kiisaska magangelya doonka ah dadka asylum-ka dalbaday iyo sidoo kale goorma ayaa dib loo bilaabayaa iyo su'aasha ugu muhiimsanayd oo ah qof kiiskiisa magangelya doonka aan go'aan laga gaarin miyaa masaafurinaysaan arrintaasi maxay uga jawaabtay waan idinla wadaagayaa sidoo kale nin kale oo u dhashay waddanka Afghanistan oo isagana la qabtay isagoo TikTok-kiisa soo geliyay oo dhahaya bam ayaan doonayaa inaan sameeyo waxaana lagu qabtay Fort Texas ayaa lagu qabtay haddana waa uu xiran yahay arrintaasina waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhaw waxaan ognahay toddobaadkan in si aad ah looga hadlayo immigration-ka dadka soo galootiga ah kadib markii ninkii Afghanistan u dhashay uu labadii askari arbacadii la soo dhaafay ku dhaawacay caasimadda Washington DC meel aan ka fogeyn aqalka cad walow mid kamid ah ay geeriyootay labadii askari midkii kalena ay weli noloshiisa qatar ay ku jirto marka maamulka Trump waa kii joojiyay process garaynta dhammaanba dadka green card-ka uu processka ugu jiray kiisaskii magangelya doonka waa kuwii gabi ahaanba joojiyay isla markaana dadka ka imaanaya wadamada dabaqada saddexaad oo 19 wadan oo Soomaaliya ku jirtana waa kuwii yiri si joogto ah ayaanba u joojinay oo nooma imaanayaan haddaba wasiirka amniga gudaha Christine Naom ayaa saaka waxay wareysi siisay qaar ka mid ah telefishinada Mareykanka gaar ahaan waxaan rabaa wareysi ay siisay telefishinka NBC barnaamijkiisa la yiraahdo Meet the Press oo axad kasta baxa isla markaana ay daadihiso gabadha la yiraahdo Kristen Welker waxa ay barnaamijkaasi ay uga hadashay oo lagu weydiiyay su'aalo dhowr ah oo arrimahaasi la xiriira su'aasha ugu horeysay oo la weydiiyay waxa ay ahayd waa tii immigration-ku uu soo qoray ninka madaxda ka ah USCIS oo la yiraahdo Joseph Edlow waxaan gabi ahaanba hakad gelinay dhammaanba kiisaskii magangelya doonka ah ilaa aan ka xaqiijinayno qof kasta oo waddanka sharci darro ku soo galay in sida ugu macquulsan loo baaro marka dhammaanba asylum-ka waa la joojiyay ma ahan kuwa affirmative-ka laakiin xitaa kuwa defensive-ka ah macnaheedu waxay tahay all asylum ayuu yiri waan joojinay arrintaasi bal ka waran ayaa la weydiiyay wasiirka amniga gudaha Christine Naom su'aashu marka waxay u dhigmaysay dadkaasi ka soo cararayay qalalaasaha iyo sidoo kalena in gudamadooda laga yaabo in dacwado ay uga socdeen hadda Mareykanku miyuu ka joojinaya oo soo maciin bidaya Mareykanka inay ka helaan in uu magangelyo siiyo dadkaasi hadda ma ka xiran tahay dhammaanba dadkaasi magangelyo ma dalban karaan miya marka Christine Naom waxay sheegtay dadkaasi si probably oo macquul ah ayaan u baari doonaa waxaana sidoo kale ay sheegtay in qaabab cusub oo dhawaan la dhaqan geliyay ay dadkaasi lagu apply gareyn doono ama sidoo kale dadkaasi ay la doonayo in lagu baaro waxaana ay sheegtay in dadkaasi ay marsiinayaan qaababka cusub ee magangelya doonka ee maamulka Trump uu dejiyay isla markaana ay xaqiijinayaan dadkaasi ujeedada Mareykanka ay u yimaadeen inay ahayd in magangelyo sax ah ay ka dalbadaan marka waxay tiri qof kasta oo halkan yimid waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in uu u qalmay in magangelyo la siiyo waxay tiri maamulkii naga horeeyay ee Biden arrintaasi ma uusan sameeynin dad noocyo kala duwan ah ayaa Mareykanka iska soo galaya marka hadda waxaan doonaynaa qof kasta oo Mareykanka magangelyo ka dalbanaya inaan xaqiijino ma u qalmaa qofkaasi in magangelyo la siiyo marka waxa la weydiiyay oo marka la gabadha Kristen Welker weydiisay wasiirka amniga gudaha hadda goorma ayaa dib loo bilaabayaa in dadka asylum-kooda la process gareeyo wasiirka amniga gudaha waxa ay ku jawaabtay waxa aan dib u bilaabaynaa process gareynta asylum-ka marka aan wax ka qabanno kiisaska magangelya doonka ah ee isgaaray oo aan hadda hayno hal arrin ayaa jirta oo ay tiri dadku intooda badan aysan ka hadlaynin in maamulkii hore ee Joe Biden ay nooga tageen 1.5 milyan oo kiisas magangelya doon ah oo aan weli go'aan laga gaarin marka waxa ay sheegtay dadkaasi waxaa loo ogolaaday in Mareykanka ay soo galaan isla markaana si qaldan ay u isticmaalaan kiisaska magangelya doonka xitaa waxay tiri dad fara badan oo macquul ay ahayd in magangelyo la siiyo ayaa muddo sanado ah kiisaskooda aan la process garaynin marka waxa ay tiri ma ogolaanayno in si qaldan loo isticmaalo
magangelya doonka marka waxa ay tiri waxaan doonaynaa inaan gabi ahaanba meesha ka saarno 1.5 milyan ee kiisaska magangelya doonka ee isgaaray isla markaana shakhsiyaadka haysta aan baaritaan ku sameeyno qaababka inagu aan dejinana aan ku dhaqan gelino oo maamulka Trump uu dejiyay si aan u xaqiijino in dadkaasi markii horeba aysan ahayn in Mareykanka ay imaadaan haddii laakiin dadkaasi aysan u qalmin magangelya doonkaasi si degdeg ah ayaan wadanka uga masaafureynayna arrintan sina waa u wanaagsan tahay sina waa ay xun tahay qayladii yeerto nin bay khayr u tahay ayaa leeyahay marka waxay leedahay kiisaskaasi magangelya doonka horta waan dadajinaynaa ayay leedahay marka halka markii hore ay sanado qaadan jireen kiisaskaasi magangelya doonka dadka waan baaraynaa waan dadajinaynaa qofkii u qalma in magangelya la siiyana waan siinaynaa qofkaan u qalmina wadanka waan ka masaafurinayna marka macnaheedu waxay tahay in horta ay dawladdu doonayso inay dadajiso kiisaskaasi 1.5 milyan ah ee hor yaala immigrationka oo la doonayo in magangeladkaasi ama magangelyo loo ogolaado ama la diido marka arrintaasi waa arrin wanaagsan sidoo kale su'aasha la weydiiyay waxa ahayd saacadda wasiir waxa aad masaafurinaysaan ayaa la yiri dadka kiisaskooda magangelya doonka ay bandhanka yihiin oo aan weli go'aan laga gaarin markaas waxa ay ku jawaabtay arrintan la yaab kale waxa ay tiri ha waan masaafurinaynaa haddii ay u qalmaan in la masaafuriyo marka waxa ay sheegtay waxa aan sidoo kale ay tiri aan gabi ahaanba aan eegi doonaa kiis kasta oo magangelya doon ah isla markaana dadku ay soo dalbadeen ama kiisaska kale ee asylum-ka oo aan hayno dadka wadankan yimid isla markaana mid kamid ah requirementiga ama waxyaabaha looga baahan yahay kiisaska magangelya doonka waxaa kamid ah in qofku sanad kasta uu yimaado waa ICE qofku marka uu tagayo kale in sanad kasta uu yimaado isla markaana la ogaado inuu weli wadanka joogo iyo in kale interview laga qaado baaritaan lagu sameeyo taasina waxay tahay mid aan doonayna inaan dadajino marka dadka waxay noqon doontaa in ICE balamo loogu soo diro ama maxkamada loo soo geliyo ama kuwii immigrationka interview loogu waco dawladdu marka waxa ay doonaysaa qof kasta oo kiiskiisa asylum-ka uu yahay in dib loo baaro sida ay hadda sheegayaan sababtoo ah waa ay hakiyeen in kiisas cusub la xareeyo oo magangelya doona kuwii hore ay waxay yiraahdeen go'aan ka gaarayna qofkii asylum u qalmana waan siinayna qofkaan u qalmina wadanka waan ka saarayna marka waxay leedahay waxaan doonaynaa inaan arrintaasi dadajino si degdeg ah ayayna ku dhici doontaa qof kasta oo asylum claim haysta oo magangelyo naga soo dalbaday maanta waxaan xaqiijinaynaa inuu u qalmo inuu wadankan joogi karo ujeedadaasi uu u yimid in magangelyo uu dalbado haddii qofkaasi uusan u qalmina wadanka waan ka celinaynaa marka ma doonayna dadkan in mayalka laga bedelo isla markaana ay dambiyo xun ay kula kacaan dadka Mareykanka hadda ninka Afghanistanka oo kale ay ka hadlaysaa waxa ay tiri wareysiga bilowgiisa ayaa lagu weydiiyay waxay tiri ninkan mayalkiisa waxa lagu bedelay Mareykanka sida ay sheegtay marka bal iyadoo arrimahaasi ka hadlaysay oo su'aalahaasina la weydiinayo bal wax yar ila daawado They will be properly vetted. They will have new standards put in place, applied to them to ensure that they're here for that purpose. When will the asylum process Nobody's start coming again? here until we're sure that they're going to be someone who truly deserves that program, deserves that opportunity. And under the last administration, that just wasn't happening. We had all kinds of people come in and use those programs for nefarious purposes, and it's going to stop. Okay, when will the asylum process start again? Well, it'll start when we know that we have dealt with the backlog that we have, Kristen. One of the things that nobody's talked about yet is that Joe Biden left us with a backlog of 1.5 million asylum cases. They allowed so many people to abuse that program that they didn't even process the paperwork. So people who maybe, as you would say, could have credibly claimed this, they weren't even getting processed for years and years because they were allowing it to be abused in such a way. So that backlog needs to be cleared up. The individuals who are here in this country on that program need to be vetted under our standards that we're implementing under President Trump to ensure that they even should be in our country, and if they're not, removed immediately. Will you deport people with pending asylum claims, Madam Secretary? We will if they should be, absolutely. Yes, we are going to go through every single person that has a pending asylum claim, has an asylum claim here in this country. You know, one of the requirements of asylum is that you have to come in every single year for a checkup and an interview process and a re-vetting, and that is something that we're going to expedite and happen immediately with anyone who does have that asylum claim today, and ensure that they deserve to still be in this country, that they still have the purposes for which they claimed that asylum in place, and that they're not here being radicalized and perpetuating dangerous criminal activity against our Americans. marka waxaan rabaa dadkeena Soomaalida ah oo asylum-ka ama kiisaska magangelya doonka ay u xareysan yihiin inaan taladan siiyo
haddii ballan maxkamadeed mid ICE ama mid immigration laguu soo diro fadlan ha u gambinin inaad gambiso ayaa ka daran haddii aad tagto waxaa macquulaba in magangelyo lagu siiyo amaba laguu diido haddii laguu diidana calafkaadu halkan kama qorno waddankaadii ayaa lagugu celinaya laakiin haddii aad gambiso micnaheedu waxay tahay in gurigaada shaqadaada meel kasta lagugu imaan karo oo lagu qaban karo kadibna xabsi lagu gelinayo kadibna lagu masaafurinayo marka dadkeena Soomaalida kulama taliyeen in ballamaha ama maxkamadaha ama ICE ama immigrationku ay u soo diraan in ay gambiyaan dad fara badan ballamaha loo qabtaa jiro waa ay tageen waana la ogolaado sharcigoodii waa la siiyey kuwa qaarna waa la xiray labadaba way dhici kartaa marka inaad gambiso ayaa ka daran oo aad tagi waysood jarto in aad tagto ayaa wanaagsan arrintaasna taladaasi waan siin ugu dambeyntii nin kale oo wadanka Afghanistan u dhashay oo kamid ahaa dadkii laga soo qaaday Afghanistan markii Mareykanku ay ka soo baxayeen oo magaciisa la yiraahdo Mohammed Dawood Al-Kazoy ayaa isagana la qabtay talaadii la soo dhaafay kadib markii bartiisa TikTok uu soo geliyay isagoo bam sameynaya isla markaana dhahaya waxaan doonayaa mid kamid ah dhismayaasha ku yaala Fort Worth Texas inaan qarxiyo ninkaasi waxa lagu soo eedeeyay dambi heer gobol ah oo inuu fal argagixisa uu sameynayay waxaana soo qabtay FBI-da ninkan green card ayuu haystaa bishii September 7 sanadkii 2022 ayuu qaatay marka nimankan Afghanistan ayaaba hadda xaaladda sii kiciyay arbacadii hore waan ogeyn midkii labada askari ku dhaawacay oo mid kamid ah uu geeriyooday caasimadda DC haddana waa kana ninkan ayaa isagana la soo qabtay oo hadda xiran isagoo bam sameynaya TikTok-giisaba soo geliyay sida afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ay barta X ay ku xaqiijisay oo aragtaan ninkan isagana gacanta ayaa lagu soo dhigay marka hadda waxay noqonaysaa in baaritaanada la sii badiyo aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo